بسم الله أعوذ بالله أصحابتي دمانتي وإذن سلامة ما يلو الباد دنيا كجوكتان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan maanta rabaa inaan idin sheegareeyo mise aan idin soo gudbiyo waa qisona lama dhihi karo laakiin waa arin murugo leh arin hadda dhow dhacda waaye oo xitaa walaa qofka bini'aadanka oo damiirka leh uu ka damqani karo marka insha Allah arintanna qof kasta oo bini'aadan oo damiir leh haduu dhageysto mise haduu maqlo walaahi waa arin uu ka damqani karo marka insha Allah واتنا إلى دقيستا ورطة عذرك COVID-19 أما كورونا فيروس أي هاد وحو قاري دقمدا سومالي دقان وقوي بري كينيا قارهان ميلو يقانو مندير أنا ما قشي إن كلام شيء كره لكن مندير أيو هاد قاري كورونا فيروس هوا قاري ما حمي كورونا فيروس أدون كدنبو كفافة ياي كورونا فيروس كهاد مندير وحا لغا هلي ويل إيو قبر isla dhashay oo walaale ah ilmasaas u weyn ma aha waa teenagers okay marka ilmihii dhacaanka laga qaaday oo Nairobi loo soo diray oo kadib resultigoodii loo soo celiyay Madeira oo la arkay inay cudurkii qabaan ayaa waxa dhacday cudurka horta qofka markuu ku dhaco it is up to him qofka markuu weyn yahay oo adult yahay waa go'aan asaga uu leeyahay haduu rabo inuu umada la wadaago uu dhow xaaladeyda caafimaadsan waaye cudurka igu dhace ogaada taas waa mid asaga qosayso laakiin ma fiicno qofka markuu cudur ku dhaco cudurka asaga oo rabin in umada kale la ogeysiiyo inuu asaga qofka si coronavirus ku dhacay asaga oo raali ka ahayn in magaciisa umada kale loo soo gudbiyo arin fiican ma aha soo maaha marka waxa dhacday gabadhan iyo wiilkan yar oo cudurka ku dhacay waa la orday marka cudurka laga dabeynayo magacaaga sharci numberka telephone numberkaaga wax walba waa laga qorayaa soo maaha everything oo laga qoray details ama personal information ki dhan oo laga wala qoray markii cudurka laga baarayay ayaa markii resultiga la soo celiyay waxay sameeyeen dadkii cudurka ka baarayay social media ku soo faafiyeen okay Facebook gruubyada WhatsApp-ka gabadha magaceedi xalla telephone numberkeedi inta sano ay jirto sharciga numberka sharcigeeda wixii dhan ayaa lagu soo faafiyay macala qabiilkay ka dhalatay familkeedi dadkii oo dhan ayaa lagu soo faafiyay social media bismillah walay familka hadda murugo hor leh iyo takoor ayaa wala takooraya عدي كورونا فيروس قبت الله هاد كبرن عدي دمالنا ولا حريست that is okay إلا بدي لقى هلي عذرك أيجنا ويحريسنيهن so why أو دتكن المهن سومالي هرتوح اسمه قارس والله سومالي وحك قلدن I don't know سومالي والله ولا قدام بابي sometimes so ما لروين سيدي ومدك له قفكي رو إنه so بنانك so شعب بحيو حالة دي سعافي ماد أسيء قصيصة سومها لكن ما أها قفك مركي كورونا فيروس كدعو أنت أردد مقعيسة أفاريه سيدم فاميلكيسة social media سو دكتد why privacy أجر سومها qofka haloo qariyo ilaaha cudurka kurida qof kastana uu kuridi kara ilaahana ka bixin kara soo maaha markan labadan walaahi dadka hadda qiiro ayaa dadkii familki dhan ayaa waxa laga dhigay dad oo cudur xun oo dilaa ku dhace ma garatay familki hadda gurihii dadkii waa la waday waa la xareeyay ee kan hadda dhacaana laga qaaday Nairobi loo soo diray result ay sugayaan quarantine ku jiraan way xareysan yihiin so xaafadooda agtiisa markii la maraayo maxaa dhii kuwi corona virus ki qabeen dariski waxay ka dhigeen dad oo ma aragtay acuudu billah cudur aan waligiis la arkin ku dhacay baloodki waa la farfiiqi dadkii meesha guriga degnaayeen waa la farfiiqi xaafadii dhan familki dhan qabiilki dhan ayaa la farfiiqay waxaasna waxa sabab u ah qofkii resultiga banaanka keenay ayaa sabab u ah marka walaahi waa arin laga qeyroodo soo maaha inay dad bilaadan oo ilaahay maanta cudur adduun weynaha dhan ka socdo ku dhacay la ordo hadana looga sii daro takoor looga sii daro ay laga dhigo wax oo ma aragtay bismillah ayaga cudurka isu keeneen iyaga sabab u tahay sababta cudurka ugu dhacay والله وأرين أن زائد وقيرودي وحارجينا وإن الشيء قرينا ووح لجا حناقو مثل لجا حماده مثل والله بالله على الحماة وإكاس إن هذا قبل السير كبرن
in dadka qaar ta sawiraanteeda la wareegaan marka hore dadka ugu hore oo telefoonka numberka heleen way ordeen way save gareeyeen whatsappka ka fiireen statuska gabadha waxaa la sawira u saarnay dab sawirkay la boodeen wakaas waatan tii qabta cudurka kabaran gabadha sata cudurka ilaahay uu ka caafin kara samaha boqol ka caafimaad kumana ka caafimaadeen cudurku way ka caafimaan kartaa laakiin afterwards marka cudurka ka caafimaad gabadhaas maxaa u imaan kara oo dib ah waa dareemi kartaa marka insha Allah Soomaaliya fudeedka amisana dadka oo jecel inay ceebaha dadka si faafiyaan misana wax qof bil aadan ku dhacay inaad faafisid hadaad jeceshahay iska daa it is not good Soomaalida xaqoodana waa lagu tuntaa ayagina bedelkii isu istaagi lahaayeen ayagii haddana xaqooda isaga sii tumanayeen oo si xun isla dhaqmayaan because of the Kenya dadkii dhan oo cudurka ku dhacay labada qof oo ka caafimaadeen oo dhahan anaka cudurku nagu dhacay waana ka caafimaadnimo oo dadka kale yaa arkay qabiileeyihiin yaa og meel ka soo jeedaan yaa og cid og ma jirto because waxay dhahan personal information kayna marabna in banaanka la geeyo taasina waxa waaye okay waaye because looma baahna qofkan hadhow dhibka uu imaan karo waa dareemi kartaa cudurkan daraadiis marka insha Allah asxaabta usoo duceeya familka seeto inuu ilaahay kurbada haysto ka qaado inuu ilaahay caafimaad ugu bedelo cudurkan waa laga caafimaad karaa ilaahay inuu caafimaad siiyo insha Allah anaka dhanna stay safe meel aad joogtidba gacmaha dhaqo waxaa la dhahaa precaution ka lagu dhahay samee is ilaaliya insha Allah ilaahay hanaga qabto inta cudurku ku dhacana ilaahay caafimaad ha siiyo wabillahi tawfiiq